بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دهر صوبان أخيارت هودا نقد دقيسان رسائي كسو دوادا برنامجك حولشة دلشر وكوب يطبان كبيشة مارت سنة كلابا كون يسيديد يطبان قضبضات كم غل دونتان برنامجك حولشة دلشر بانتا وحاقوا وين إنا كلنا السياسي إسماعيل نور شيخ وكمد السياسيين تصوماليات كون السوغان مقالة مقدشو أيا وحا وكهل ليسون الدوائي هذا الكيمة دحوين محمد عبد الله فرماجو وأها إن أدقنين أدري ودمدا اسكو دايه إن أي صومالية أي كالقيبيان نور إسماعيل وخوري وهل ليشيس كان مركلي أيا كعلي موقف كيسة أفلقاددي إمارات كعربتا كتمد قارهان مدحا وقصر رأيه شركة دي بي وول لكن من أقرأ وشوغه أيو قدك تليفونك وقوة الرمي طبعا الرجل بالبر ومعي علمية إذا حدث الرجل بالبر شيء تحكي شركة وشيء سؤال لو معه أمد الصوماليات سياسيين هديها لعين هديها لعين شعب هديها لعين ملاحظة الدرة إن لو هرتق اللي بهاي فهو حي دولة الإمارات وهي تحدي في كريستانكا إلى أحضانها أمد الصوماليات وحي رجلين نص في صوماليا وحي سوادنا مرتي أما يسجل مرتي دولة دي فدرالكا أيوة استعمالك من البلدية ما مستعمل لأنه واسطي إنه هي دولة ملح بنان مركا وملك النح من الذي أيضا كانت مركا دولة الإمارات هو حبيل هاي وعرضها أي الضوء والمجال يسمى الشيء فرجنت إلى حل جدا ورشدة والكنسراء وحال مشروعين جاري الوطن مركا دولة الإمارات كلها انضرب دولة عرضها مركا وحا دولة الصومالية عن عودات الهاي عن شعب الصوماليات عن عودات الهاي وسياسية اللي يبي عرضها وسير اللي هو الشهور عرضها الشعب اللي هو دولة الإمارات maanta aba xiriir loo jiro aba ay kaalideen ay ka bixiso qalabkii ay gashay iyo in ay maamulgoboleed ku tilmaanto in ay tahay dowlad madax banaan waa tahay Ismaaciil laakiin labada wadan hadday xiriir isku jiraan waa Soomaaliya iyo Imaaraadka maxaa ka dhalan kara isdhihi kara maadaama Soomaali badan ay ku ganacsato ganacsigeedu ku xiraya dalka Imaaraadka والله واحد دبعتها إمارات دبعتها كويس إنه الصومالي واحد بها أي تغطى هذا مثلاً جماعة جناعة واحد جناعة ما ربنا إمارات كلام هي ترى جناعة أي أدين من الإمارات أما من داران تقول مثلاً الصومالي إذا ما يسوون ولا أي تجارة استعماله حتى دولة الفدرال كلها من الوسطين واحد أي تجارة استعماله marka ganacsiga Imaaraadka fikra tronkara ay yar fikraan ay ganacsiga yar fikraan marka Imaaraadka mar walba dhawaatan ku xidhnaanada wax faa'iido ah oo nagu sugan ma jirto waxay aragtay gobolada ana waxay tahay Soomaaliya in macnaha ay ku calaameyso sida xayku inter la dalka qaba marka Soomaaliya waxay qaadatay dowladda federaalka waxay qaadatay go'aan ah dhexdhexaadnimo go'aanka dhexdhexaadnimada ah waa go'aan diblomaasiyeed lagu baxsan karo labada dhinacba marka waxaad moodaa in dowladda Imaaraadka arrintaas ay ayadoo ka doonaysa ay xadgudub samaysay jiritaanka Soomaaliya iyo qarnimadana iyo sharafta ay meel ugu dhacday waa tahay madaxweynaha waxaa la filayaa inuu u socdaalo dalka Qatar ma la isdhihi karaa socdaalkiisa wuxuu la xiriiraa arrinta Imaaraadka madaxweynaha maahan markii uu horeysay oo booqdo dalka Qatar horay ayuu xusuusi jiray booqashada labaad ayay noqonaysaa madaxweynaha dalka Imaaraadka waa tegey dalka Qatar waa tegey laakiin heshiiska ayuu tagayaan madaxweynaha sida horay loo ballan qaaday oo safarkiisii horay madaxweynaha heshiis ayuu halkaas ka dib doonaa dadkii ballaaran ayaa raaci doona markuu bixi doono marka waa faa'iidooyin ka kororta Soomaaliya dhihi karaaba wadanka Qatar maadaama ay aragtay in Imaaraadka maadaama Qatar xiriir loo dardiilay Imaaraadka
dhibaatadii ku haya soomaaliya aragtay in lagu faa'iideysto maanta ay wadankii dibadib ay ku samayso waa wax loo baahan yahay madaxweynaha socdaalkaas waan ku bogaadinaynaa haddii aan nahay siyaasiyiinta soomaaliyeed. waa tahay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa shacbiga soomaaliyeed iyo dadka kale ku dhegaysanaya oo ku aadan midnimada ummadda soomaaliyeed maadaama ay muqadas tahay qarannimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed? shacabkii ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan iyo shacabkii dhegaysanaya halkaan iga dhegaysanaya waxaan ugu baaqayaa in ay kacaan oo ay banaanbax dhigaan oo ay dareenkooda muujiyaan. maanta waxa lagu xadgudbaya waa dalkoodii, waa qarannimadoodii, waa sharaftoodii, waxaa meel looga dhacayo. waa inay banaan baxaan, waa inay dowladda imaaraadka tustaan inay yihiin shacab midaysan oo aan lagu xadgudbi karin, aan fargelin lagu samay karin. intaas ayaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed. barnaamijka aad maqlaysaan